kulanti wacan ku soo dhawaada falanqeyn kooban oo aan maanta ku sameyn doono booqii ka dhacay xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xilli loo madlanaa in la ansixiyo cutubyo ka tirsan wax ka beddelka dastuurka. Waxaa igala qayb qaadanaya wariye Cabdullaahi Gaban oo ka mid ah wariyaasha ku sugan magaalada Muqdisho. Marka wariye soo dhaw. waa dhawahay Cabdiraxmaan. Sidee u aragtaa booqii maanta ka dhacay xarunta golaha shacabka xilli loo madlanaa in la ansixiyo cutubyo ka tirsan dastuurka Soomaaliya? Cabdiraxmaan waa maasan tahay maanta xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa waxaa ka dhacay wax ama kaag lagu tilmaami karo sidoo oo kalena waxaa lagu tuntay anshaxa baarlamaanka. Gabi ahaanba waxaa la jeexay ama ay xildhibaanada mucaaradka ay jeexeen sidoo oo kalena awood ay ku soo muujiyeen fagaaraha golaha shacabka oo maanta loogu madlanaa in akhrintii koowaad lagu marsiiyo hindisharciyeedka koowaad ee cutubka 5 iyo cutubka 9 ee wax ka beddelka dastuurka kumeel gaarka oo sidaan horey ay xukuumadda hadda jirto ay u horgeysay baarlamaanka 11aad ee waqti xaadirkaniba ku dagaalamay in dastuurka la bedelo awgeed. sidoo kalena waxaa ka dhacday xarunta baarlamaanka maanta arrin ay dadka Soomaaliyeed aad ay ula yaabeen oo gacan qaad toos ah oo ay sameeyeen qaar ka mid ah xubnaha golaha shacabka iyo senator ka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ah wasiir ka tirsan xukuumadda si qaas ah. Arrintaasi waxay muujinaysaa kalsooni la'aanta waqti xaadirkan ka dhex taagan tahay xarunta golaha shacabka. Si toos ah ajandihii ugu baaqday sidoo oo kale wax la ansixiyay wax kale ma jiraan Cabdiraxmaano. sidoo oo kale arrintaasi waxay si toos ah ay u abuurtay in bulshada Soomaaliyeed ay si aad ah hadalhayn ay ugu sameeyaan. gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madow waxa uu sheegay in ajandihii loo qaybiyay xildhibaanada maalinta tan xigtana laga doodi doono. Arrinta iyada bal ka waran sidee ku dhici kartaa? arrintaasi sida warbaahinta soo qabanaysa waxaan si toos ah ugu jeednay xildhibaanada oo jeexaya siiba xildhibaanada mucaaradka xildhibaan Frimbi oo halkaasi asaga iyo wasiir Fartaag ay gacan qaad toos ah ay ku dhaxmartay. Arrintaasina gudoomiyaha golaha shacabka waxay baarlamaanka mucaaradka ku eedeeyeen in mooshin hore oo ay u dhiibeen uu qaban waayay sidoo oo kalena ay waqti xaadirkani baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday sida ay ugu yeereen oo hadalka u dhigeen in marnaba uu ka doodi karin dastuurka iyo wax ka beddelkiisa. sidaas awgeedna baarlamaanka la fasax sida ay ku andacoonayeen. marka haddii aan u eegno damaca xukuumaddu oo safka gudoomiyaha baarlamaanka ku jirto sida waqti xaadirkani waa ka dheehan karto waxay doonayaan in la dhaxmariyo wax ka beddelka dastuurka xubnaha golaha shacabka in ay gacanta u taagaan labada cutub ee waqti xaadirkani inay bedelaan ay doonayaan. waa tahay kulanka 1 Febraayo loo balansan yahay tilaabada maanta ka dhacday golaha shacabka maxaa ifafaalaha uu ka bixinayaa? kulankaasi horey ayuu dawladda war uga soo saartay. shalayto dawladda waxay la kulantay qaar ka mid ah xisbiyadii doorashada golaha deegaanka magaalada Muqdisho ka qayb galay sidoo oo kalena waxay ku sheegtay la tashi bulsho. madasha mustaqbalka oo kulankaasi lagu casuumay dabcan waxay u maleynayaan in kulan siyaasadeed oo looga doodayo arrimaha doorashooyinka iyo siyaabo la mid ah. taasina waxay noqon kartaa dabin siyaasadeed oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda ay damacsan tahay inay ku soo rido barnaamijkaas. waa tahay war saxaafadeedka dhawaan ay soo saareen golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxay ku sheegeen in shuruudo laba shardi koowaad waxay dhaheen in madaxweynuhu gabi ahaanba uu joojiyo wax ka beddelka dastuurka. maantana waxaa muuqata in madaxweynuhu uu rabo inuu marsiisto baarlamaanka wax ka beddelka cutubyo ka tirsan dastuurka Soomaaliya. marka taasoo lama dhihi karo 1 Febraayo wax ifafaalo wanaagsan ah kulankaas dhexmari doona mucaaradka iyo dawladda ma lahan. Cabdiraxmaan sida aad la socoto shalayto saxaafadeed ay u qabteen xubnaha ku metela dawlad goboleedyada wax ka beddelka dastuurka waxay soo saareen war saxaafadeed toos ah oo ay ku diidayaan in ay gabi ahaan ka soo horjeedaan habka ay dawladda Soomaaliya ku wajahayso in ay wax uga beddesho dastuurka kumeel gaarka. sidoo oo kale waxay si toos ah u sheegeen in gabi ahaanba aysan ku raacsaneen habka baarlamaanka loogu gudbiyay sidoo oo kalena wax ogaansho ama talagelin ah aan laga siinin kuwaasi oo ah dawlad goboleedyadii xubnihii wakiilka u ahaa ee la rabay dastuurka meeshii laga galayay inay ogaadaan la rabay haddii wax laga bedelayo siyaabo wax looga bedelayaa ajandaha baarlamaanka la horgeynaya ka hor intaysan baarlamaanka la horgeynin guddiga joogtada uusan kulmin waa in dadkii lala wadaagi lahaa waayo oo shirarka xasaasiga markaas ka yeelan lahaa. taasina waxay keenaysaa
24 saac ayadoon kasoo wareeganin in xubnihii mar labaad shir ay qabteen oo xubnihii qaar ka mid ah shir ay qabteen ayadoo ku-xigeenadoodii ba-an ilaa hadda ay meel dheer oga istaagsan yihiin ayagoo diidaya weli in dastuurka wax laga bedelo. waa tahay cabdulaahiyow maadaama maanta golihii uu ku kala tegay buuq ajandihii iyo wixii loo ballansanayna ay halkaasi kusoo gabagaboobeen maxaa la filan karaa fadhiga xiga? waxaa la filan karaa maadaama fadhigii maanta waxaan dhihi karnaa wuu fashilmay. xukuumaddu maanta damacii ay lahayd waa fashilmay saasaan dhihi karnaa maadaama gacan qaad ka dhacay wasiir meesha gacan qaad uu ka geystay sidoo oo kale wax ama kaag ah ay ka sameeyeen xaruntii villa Hargeysa ee baarlamaanka. sidoo kale waxaan dhihi karnaa inuu fashil ku dhamaaday kulankii maanta annagoo aan analyze gareynayno sidii maanta wax u dhaceen haddii berri wax ka bedel kale ay sameeyaan ma sheegin laakiin kulankii maanta wuxuu ahaa kulan fashilmay oo waxaad moodaa inay mucaaradka ay kulankaani kasoo baarandegeen ay ka fikireen in ajendahaasi aan si toos ah aan looga aqrinin meesha sidoo kalena uu ku dhamaado buuq iyo sawaxan. waa tahay intaas ayaan kusoo afmeeraynaa falanqeynteena koobaneed ee aan ku sameynaynay xiisadii maanta ka dhacday golaha baarlamaanka Soomaaliya. tan iyo kulan dambe, asalaamu calaykum waraxmatullah.